الله ha u naxariistay marxuum Sheekh Aadan Madeer oo kamid ahaa mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa maantay lagu aasay qubuuraha isbitaalka Madiina kadib markii maalinkii shalay ay kooxo hubeysan ku dileen degmada Xamrweyne xilli uu ka soo baxay masjid ku yaala halkaas oo uu ku soo tukaday salaadii Jimcaha waxaana goobtii maanta lagu aasay marxuumka goobjoog ka ahaa mas'uuliyiin ka tirsan labada gole ee dawladda iyo ehelada marxuumka aaska marxuumka kadib ayaa waxa warbaahinta la hadlay qaar ka tirsan mas'uuliyiintii ka soo qayb galay aaska waxa ayna ka sheekeeyeen taariikhdii uu lahaa marxuumka iyagoona uga tacsiyadeeyay ehelada qaraabada iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed geerida marxuum Sheekh Aadan Madeer oo ahaa gudoomiyaha guddiga maaliyadda ee baarlamaanka Soomaaliya wuxuu aragii ugu horeeyay oo la qaatay ayuu ahaa oo ugu dalajo sareeyay kadib dhowr sano ayuu ka shaqeeyay bangiga ilaa burburkii wuxuuna ahaa maamulayaal wuxuu soo qabtay meel shaqooyin kala duwan oo bangiga ganacsiga ayuu soo qabtay waxaa loo magacaabay maamulaha bangiga Xudur kadib haddana waxaa loo magacaabay laanta saddexaad ee xamar ee bangiga ganacsiga wax badan ayuu qaybo badan ayuu ka soo qabtay bangiga ganacsiga odayaalka uu waaweyn ayuu ka mid ahaa baarlamaanka gaar ahaan eheladii uu ka geeriyooday mudane Sheekh Aadan Sheekh Maxamed Deer oo ahaa nin haliyey ah wax badan u soo shaqeeyay ummadda Soomaaliyeed laga soo bilaabo lixdameeyadii ilaa ay hadda ahaa nin u soo shaqeeyay dawladda Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed wax badan u soo qaaday gaari ba soo ahaa markay dawladda burburtayna wuxuu ka mid ahaa dadkii carta lagu soo abuuray ilaahu naxariisto kitaabkiisa midka Allah ka siiyo nawiis Allah ka xariiriyo nin aan wada shaqeynayno ah muddo badan nin wadankan u soo halgamay shaqaale ka soo noqday siyaasi ka soo noqday oday ka soo noqday intaas oo howlaha soo qabaneen si walaalnimo oo dadku u dhaqmaayay si wanaagsan si cadcad Sheekh Aadan Madeer aniga waxaan la shaqeynayay waqti ilaa 4 sano 5 sano haddana sidii uu xilligan ismaan sheegay guddi baan ku wada jiray inta aan rabaa anigu inaan ku xasuusto sheekhaas waxa weeye ceeb yari Sheekh Aadan Maxamed Madeer iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan xildhibaanada Soomaaliyeed gaar ahaan anagu inteeda hadda maanta halkan taagan waa la soo shaqeynay waana wada shaqeynay waxaan ahayn golihii wasiiradii hore oo ku magacdheera badbaado Allah ha u naxariistay Sheekh Aadan Madeer waxa uu ka tirsanaa mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya waxaana uu horay u soo noqday wasiir dawlihii hore ee wasaaradda maaliyadda ee xukuumaddii ku-meelgaalka ahayd taas oo garweedaynka ka ahaa ra'iisul wasaare Cabdiweli Gaas waa Maxamed Bile wararka Somsat Muqdisho